laakiin ninka ka jeesta ninka ka gaalooba ninka ku camal fali waaya ninka yiraahda kitaabkani waa dibdhac yiraahda ilaahay waxa uu leeyahay kaasi dabarka ka jabinaynaa waan hoojinaynaa wuxuu ku noolaalin nolol qaraad oo fool xun ayuu adduunka iyo aakhiraba ku noolaan ilaahay waxa uu yiri waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma ilaahay waxa uu leeyahay ninka ka jeesta an dhikri kitaabkayga ninka ka jeesta waanadayda ninka ka jeesta quraanka ka jeesta xaqan ka jeesta hanuunka ka jeesta ilaahay waxa uu leeyahay fa inna lahu ka waxa usugnaatay adduunka ma'ishatan nolol dankan oo qaraad ayaa sugan nolol qaraad cidhiidhi buu ku nool yahay qalaq buu ku nool yahay waswas baa dilay wuxuu u dhow yahay inuu istoogto oo istilo ayuu u dhow yahay wanahshuruhu waxaan soo xashirinaynaa maalinka qiyaamahana acma isaga oo indhala khalaa'iqdii baa la horkeeni nabi maxamed baa la horkeeni anbiyaadii ilaahay baa la horkeeni waxa la horkeeni dadkii wanaagsanaa ayaa la horkeeni isaga oo indhala oo la duleeyay oo fool xun markaas waa qaala rabbi lima hashartani a'ma ilaahu meeshan maxaad ii keentay amaama alkhalaa'iq min aljinni wal ins wal malak ilaahu hortooda aniga oo indhala maxaa ii keentay ilaahay waxa uu ku leeyahay qaala kadalik wasida xukumkayagi atadka aayatuna aayadahayaga baa ku yimid quraanki baa ku yimid nabi muhammad baa ku yimid sallallahu alayhi wa sallam atadka aayatuna fanasitaha wa iska ilowday wa diiday kumaad amal falin waxa tiri quraankani waa dibdhac maxaa tiri nolol ma aha ba tiri kitaabkan quraankii ilaahay waxa uu leeyahay wa kadhalika tunsa sidaas naarta inta lagu tuuro adigana lagu iloobi ninka kitaabkan quraanka ka jeesta ninka ku amal fali waaya ilaahay waxa uu ku salidaa shaytaan ayuu ku salidaa xumaan oo dhan buu u jilciyaa xumaan oo dhan buu tusiyaa nolol xun oo dhan ayuu qofkaasi ku jira waswaas iyo qalaq ayaa dila ilaahay waxa uu yiri waman ya'shu an dhikri arrahman nuqayyid lahu shaytaanan fahuwa lahu qariin ninka diintan ka jeesta quraanka ka jeesta waxaan ku salladnaa buu ilaahay yiri waxaan la xiriirinaa shaytaan ayaa la xiriirinaa jin baan la xiriirinaa waswaas baan la xiriirinaa khalaq baan la xiriirinaa waligi guriya fiican ha ku jiro waligi dumar qurux badan ha qabo waligi baabuurku doona ha wato nolol cidhiidhiyo oo qaraad oo aad u foolxun ayuu ku nool yahay ayaalay ruuxda xaq u sii waaye ruuxdani waxay agtiisa quraan bay u baahan tahay salaad bay u baahan tahay dhikri bay u baahan tahay ruuxdii cuntadeedii ayay weyday qalaq ayuu ku nool yahay qofkii kitaabkan quraankii waa shifa waa caafimaad ilaahay wuxuu ku tilmaamay shifa dawo ilaahay ma oran dawada waxa loo qaataa in caafimaad lagu gaaro ilaahay waxa uu leeyahay maya isagu dawo ma aha waa caafimaad ba kitaabkan quraankii ilaahay waxa uu yiri qul huwa lil ladina aamanu hudan wa shifaa hanuun iyo caafimaad buu yahay buu ilaahay yiri kitaabkan quraankii kitaabkan maanta ay yiraahdeen kuwii aqli gaabka ahaa kuwii maanka yaraa waxay yiraahdeen kitaabkii quraanka ayuu badsado oo ku waashay kitaabkii quraanku aad u akhriyo kitaabkii baa maray kitaabka baabuur baa kitaabkii baa maray uu waashay maxay kitaabkii buu badsaday ayuu leeyahay quraanku ma mid lagu waashaa quraanku ma mid lagu waashaa ilaahay baa nabigiisa ku yiri